cabdiqaadir nuur maxamed oo ka mid ah maxaabiista ay saldhigga weyn ee magaalada Hargeysa in muddo ku wada xidhnaayeen wariye samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon oo maanta warbaahinta la hadlay waxa uu ka deeriyay xaaladda caafimaad ee wariye samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon iyo waliba xaaladda adag ay la kulmaan maxaabiista waqtigan ku jirta jeelasha magaalada Hargeysa waxaana uu ugu baaqay madaxweyne Biixi iyo xukuumaddiisa in la badbaadiyo nolosha Cabdimaalik Muuse Coldoon isla markaasina la geeyo cisbitaal la tacaala xaaladiisa caafimaad. maanta waxaan doonayaa inaan halkan kaga hadlo war dhiila leh oo iga soo gaaraya saaxiibkay suxufi Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ay wasaaradda caafimaadku shalay ay ka qaaday dhiigii iyo dheecaankii COVID-19 ka wasaaraduna ay sheegtay inay u dirayso dalka dibadiisa mudana ay qaadanayso laakiin hadda war aad u dhiilan leh baa laga soo sheegayaa oo waxa weeye xanuunkii laga qaaday sambalka la diray waxa uu leeyahay marka qufac fara badan iyo cuna xanuun waxa kale la soo sheegayaa hadda in xataa neeftu ay qabanayso oo aanu hadli karahayn oo uu neefta uu qaadanaya ay ku adag tahay hadalkana iska badaa sida kadalik wasaaradda caafimaadka iyo dawladda Soomaaliland ba mas'uulkan ama suxufigan xilba ka saaran maxbuusku xaq u leeyahay hadii uu xanuunsado waxa haboon in la geeyo goob caafimaad oo lagu daryeelo waxa kale jirta jeelka Hargeysa muddan ku jiray anigu waan garanayaa dadku waa isku raran qolka yare 3 by 3 mitir square ka ah waxa ku wada nool 12 qof ama 14 qof hadii xanuunkaasina oo ay dhab noqoto inuu ka dilaaco jeelka dhamaan waxaan aad ugu warwarayaa maxaabiista ku jirta jeelasha Soomaaliland run ahaantiina ay fiicnayd in la kala fudaydiyo oo cid aan kiiskooda adkeyn in la cafiyo Cabdimaalik Muuse Coldoon waa suxufi waa samafale dad badan wax u qabtay sida kadalik xanuunka maanta haya waxa waajib ku ah dawladdu inay isaga meel gaar ah geyso oo xataa hadii damaanad lagu sii deynayo oo damaanad inta laga qaado meel cisbitaal lagu la tacaala xanuunkiisa waxaan hubaa waa nin wadaniyada jecel xataa hadii la yiraahdo isaga istaweeyo soo noqonayo inuu yahay dastuurkuna waa u jiheeyay oo ama uu baneeyay qofka hadii uu maxbuuskii xanuunsado inay dawladdu la tacaasho oo ay xanuunkiisa la tacaasho ilaa intuu kala naanayo xilligan sambalka qaaday la soo celinayana waa muddo dheer hadii isagoo xanuunsanayo maxaabiistii ku sii dhex jirana de maxaabiista kalena waa ku khatar isaga naftiisana waa ku khatar sida kadalik dawladda waxaan soo jeedin lahaa inay il gaar ah ku eegto oo suxufiga xaaladiisa caafimaad ay la tacaasho oo meel xarun caafimaad ay geyso ayaan insha Allah bismillaah karim soo jeedin lahaa teeda kale Cabdimaalik Muuse Coldoon waxaan lagu haystaa waxa weeye waa xorriyatul qowl ama waa wax uu social media ku qoray taasina waa wax dastuurku u damaanad qaaday teeda kale waxa laba kiis weeye kiis iyo kiisna waxa la leeyahay abaarsa ayaa muxuu ahaye ka dhibanaa run ahaantiina abaarsana de toosin buu keenay sawiradana isagu muu keenin waxaan soo jeedin lahaa marka dawladdu inay cafis u fidiso oo xaaladiisa caafimaad si loola tacaalo. Cabdijabbaar Maxamed Xuseen telefishanka Ariel Hargeysa.